guddoonka labada gole mudanayaasha labada gole abdhowrayaasha marti sharafta labada guddi oo dastuurka guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dib u eegista iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan maanta cutubkan labaadana ku jirno waa cutub muhiimad gaara leh wuxuuna ka hadlayaa xuquuqaha iyo waajibaadka diritto e dovere labadaas ayuu ka hadlayaa waa ana arrin muhiima oo qofku uu leeyahay xuquuq waajibaadna lagu leeyahay sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in aan si taxadar leh oo mug leh uga doodno una la faguro waxaan runtii aada iyo aada u mahadnaqayaa guddiga madaxa bannaan oo soo diyaariyey hawshan waxaan uga mahadnaqayaa maalinta dhaweyd presentationkii ay soo bandhigeen oo runtii macluumaadkii sidii loogu talagalay inta badan ay ka muuqatay iyada oo weliba sidii dooduhu meelihii ay ugu culays badnaayeen ama xildhibaanadu meelihii ay focuskooda u badnaa ee lagu muujinayey aad baan ugu hambalyeynayaa waxaana leeyahay cutubyada soo socda sidaas iyo si la mida baan waxaa loo baahan yahay inay uga muuqato waana ku mahadsantihiin intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan qodobka 11aad farqadiisa 3aad waxaa ku qoran xukuumadda ma takoori karto qofna halkaas marka eeda waxaan ku bedelay xukuumaddu ma takoori karto qofna iyadoo maaragtay eedaas waxaan ku bedelay oo yuubay noqotay marka xukuumaddu sidaa in loo qoro oo ereygaas eeda yuu lagu bedelo ayaan soo jeedinaya isla qodobka 11aad farqadiisa 4aad oo ah qofna maqaamkiisa iyo maamuuskiisa uu leeyahay awgeed ugama baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab fardembiyeed uu galay runtii qodobkaas xildhibaano badan baa ka hadlay sidii uu u qoran yahay ama waxa weeye qodobkaas mugdi badan baa ku jira siyaabo badan oo aan sidii u xaqa ahayn baa loo isticmaali karaa waxaan sakan garaynaya oo ku raacaya xildhibaanadii badnaa oo ka hadlay in qodobkaas meesha laga saaro qodobka 14aad farqadiisa 2aad waxay leedahay qof kasti wuxuu xaq u leeyahay amniga qof ahaantiisa iyo hantidiisa qofna looma geysan karo qaab kasta oo jirdil ah ama fal bini aadamnimo ka baxsan waxaana reeban xarigga aan sharciga ahayn waafaqsanna iyo wax kasta oo cunfi ah oo ay ka mid tahay in lagula kaco haweenka waxaa halkaa ku dari lahaa iyo caruurta haweenka iyo caruurta ayaan ku dari lahaa waa soo jeedin in lagu daro qodobka 17aad farqadiisa 1aad qofna hoygiisa ama meelo kale iyo waxyaabaha u gaarka ah lama baari karo lamana basaasi karo amar garsoore la'aantiid marka kelmaddan waxyaabaha
waxaan ku bedeli lahaa iyo meelaha kale isaga u gaarka ah waa yani waxyaalo waxay noqon karaan aniga aragtidayda waxaan leeyahay iyo meelaha kale oo isaga u gaarka ah in lagu bedelo qodobka 16aad farqadiisa koowaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro qof kale ama koox kale arrintaas xildhibaano badan baa arrintaas emphasize gareeyay marka kooxdu waa nuucee kooxda uu ku biiraya marka iyadana waxay u baahan tahay in clarification ba u baahan tahay qodobka 17aad farqadiisa koowaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo diintiisa halkan arrintan xildhibaano badan baa ka hadlay labadan marna waxa la leeyahay qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo diintiisa marna waxa la leeyahay diin aan islaamka ahayn laguma faafi karo dalka waa run laakiin waxa meesha ku jirta oo aad looga hadlay dalkii inaga waxa aynu kula nool ummad baa aynu kula nool ummadaasu inay iyagu diintooda iyadoo aan faafin laakiin meelaha ay degan yihiin iyo deegaankooda ku caabudaan waxaan u maleeyahay xaq bay u leeyihiin laakiin diin aan dalka islaamka ahayn laguma faafin karo taasu waa sax weeye marka waxaan rabay arrintaas in la iswaafajiyo space la siiyo dadka bini aadanka oo dalka aynu ku nool iyagoo oo aan shirar qabsanayn ama iyagoo aan fidaynin laakiin inay xaq u leeyihiin inay meelaha iyagu leeyihiin ay ku caabudaan diintooda intaas ayaan ku soo gaabinaya waa mahadsantihiin inta badan runtii xildhibaanadii iga horreeyey baa aad iyo aad uga hadlay waxaad moodaana inta ilaa 1 ilaa 20 inay maaragtay runtii inay soo dhowaatay kelmadda ah iyo senator maadi baa marka ka hadlay ama arrintaa in lagu bedelo iyo in lagu bedelo ama baa igula habboon aad baa u mahadsantihiin